aniga oo koomo ku jira ayaa niman marqaaslo oo meel iska fadhiya lagu yiri ninkii way ka haatay deetana inuu fiirsanado soo cararay way la yaacay aasabay siraadeen markii la aasay ilkiisa la dhigay ayaa dhoobadii qawwada dhamanka la dhigay ayaa aan ku baraarugay sidii ninta soo dhigtay biyo laga shubo kale markii aan soo toosay ayaan ku hordhisay marka awood isku rugo ma lahayn 15 cisho ayaan koomada ku jiray deetana way iga yaaceen nimankii meesha islaxay haddii iga yaaceen kuwii kale dibadda ka sii daba yaacay iyaguna markay ka sii daba yaaceen ayaa inta dareenkaygu taagay life baan ahaa ee wax awood oo ku hadlo ama inta kaga soo baxa ilkan dhex jiifo ma lahayn 15 cisho waxna cabin oo deeyaalin iska ahaa deetana markaas mid kamid ah nimankii ayaa igu soo dhaadhacay deetana kafakii ma qasay ka jarjaray cudbiyada iga guray markaas ayuu iga soo saaray kafakii bartiga dhaxreebay go shaalo meesha laga caray ayuu ii soo gudtiyay cimaamad iyaduna cimaamadii laga yaacay kamid ahaa oo dii saarana waa la soo ii soo garbo soo saaray sidii ayaa laga soo saaray oo gaar laga soo qaaday xaafadii leeyma geyn oo dadkii adka laga soo bixiyay marka hadii la yiraahdo qofkii hebel ka haadada laga bixiyay geeriyo qof walba koomu galiya xaafad kale ayaa la geeyay 10 cisho kadib ayaa warkooy maqlayaan oo waxa lagu sheegay oo wax kale imika aad maqasho kala gaar 10 cisho kadib ayaa xaafadeedii la keenay oo saragnay marka magaca xabal marwe la yiraahdo halkaas iga raacay saasana la igu bixiyay imika magacay ciidii ma taqaan Cabdi Xakiim la yiraahdaa saadad Cabdi Xakiim tana cid ku garmayso xabal marwe hada taraana kameel kasta joog ku sheegaya marka magacu la saas igu baxay waa tahay marka hore arinta dhacdada koomada ku geysay mashil baad gashay maxaa ku dhacay shil baan galay yaa nuwaan ayaa halka dhigtay buriga dhuftaan waxba isku ogin oo sii jeeda deedna nabarka ogtahay nabarkaanada ugiin ragii geelba ka gabaan deetana gabkii koomadan dhacay ayaa nabarkaasi u dhacay marka taasa keentay koomadan galay adiga soo kala noqotay markii lagu yiri waa lagu aasay waxa lagu geeyay ilka lagu dhigay kadib dib u soo noolaatay adiga daran ahaan say kala noqotay markii dambe arinta ogaatay anigu waxa ila noqotay waxa igu halkii miiri ma igu dambeysay gidaarkan ku dhacay ayaanu haystay ilkan godkan iga sareeya markii dambe la iga soo saaray waxaan hadalka dadkii wax wal maqlaya saddeed kuma soo celin karayo oo baawarkii cunay ba shaqeynayni saddeerankaygu life buu ahaa wax hadal ayaa la soo celin karin waxaan haystay markaa sheeko halkii aan ugu dambeysay markii wax ugu dhaceen ayuu haystay uma haystay bada il iyo waxba walkii la dil taagnaa baa iga sheekay halkaas la geeyay saas markaa iga soo saar xitaa kafakayga weesitaa ma dhigo gurigii yeela yaa dawaalka dhigka ka iibsatay kullu dooray waa kala gaar imika geeridii waan qoonsanahay yaa saacada doonta taa dhimanayo waan ogahay waxay ku way diyaartay la imar raadinay la imar baadi goobayo ilaahay qaato khayr anigu khatmo insha Allah idin